waxa la sheegay in waqtigu awood u leeyahay inuu masaxo ama uu tirtiro xasuus walba oo fool xun laakiin dhab ahaantii xasuusaha qaar weyn ugu adag tahay inaan hilmaanno ama ilowno amaba iska jeelsiino ayna ilowsiino nafteenna 6dii bishii August sanadkii 2020 wax buuxsantay 75 sano oo ka soo wareegatay mid ka mid ah dambiyadii iyo falkii ugu xumaa ee soo maray taariikhda bini'aadamka. Haddii aan dib ugu laabano taariikhdan ay soo sheegnay magaalada Hiroshima oo ah markii waqtigu ku beegnaa 8:15 subaxnimo waxa istaagay gabi ahaanba waqtigii magaaladan dhexdeeda. dhammaan saacadihii dhex yaalay magaaladan way istaageen oo way joojiyeen shaqadii saameynta uu ku sameeyay nuclearkii lagu riday awgii. sidoo kale nasiib darra magaaladan dhexdeeda waxay istaagay maaha saacadihii laakiin sidoo kale dhammaan noloshii ka dhex jirtay magaaladan dhexdeeda nooc walba oo ay lahayd way istaagtay waxayna isu bedeshay goobtii 1 daqiiqo ka hor ahayd goob qurux badan oo cagaaran nabadna loogu nool yahay waxay isu bedeshay 1 daqiiqo kadib meel jaxiimo oo kale ah. ku soo dhawaada channelkeena ogaal cusub. muuqaalkeena maanta waxaan ku eegi doonaa dhacdadii Hiroshima oo ahayd mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu foosha xumaa ee uu ku kacay bini'aadamku. ka hor intaan aan guda galin mowduucan ah iloobin daawada inaad like saarto muuqaalka. mahadsanid. waqtigii uu dhamaanay dagaalkii labaad ee adduunka oo ahayd markii ay taariikhdu ku beegnayd bishii August sanadkii 1945 dowladda Mareykanka ayaa go'aansatay waqtigaas inay ku rido hub nuclear bama dalka Japan. sababta loogu riday hubkana waxay ahayd dowladda Japan oo diiday inay isdhiibto ama ay ogolaato shuruudihii ay shaaciyeen dowladda Mareykanka iyo dowladihii kale ee xulafada la ahaa. maamulkii dalka Ingiriiska iyo midoogii Sofiyeed iyo dalka Mareykanka ayaa ku qabtay mu'tamar ama shir weyn magaalada Potsdam ee dalka Jarmalka. mu'tamarkana wuxuu ahaa mid la qabtay intii u dhaxaysay 17 bishii July ilaa 2 bishii August ee sanadkii 1945 waxaana ka soo saareen maamulkan isu tagay shirkan dhowr go'aan oo ka mid ahaa hanjabaad cad oo loogu hanjabay dowladda Japan inay joojiso caawimada ay siinayso dowladihii la isku odhanayay Axis Powerka iyo sidoo kale inay isugu soo dhiibto dowladahan xulafada qaab degdeg ah iyadoo aan lagu xidhan go'aankan wax shuruud oo bedel loo siin doono Japan. go'aankana wuxuu ahaa go'aan meel ka dhac weyn kaga ah dowladda Japan oo ku ah duleyn la duleysanayo iyo aan loo ogolayn inay samayso waxay doonayso dowladdu. sidaa darteedna ra'iisul wasaarihii Japan iyo dhammaan xubnihii kale ee dowladduba waxay kaga jawaabeen go'aankaas diidmo cad waxayna isloosiyeen oo ismoogaysiiyeen muddadii ay Mareykanku u qabteen inay aqbasho go'aankan. taa jawaabteedana markii ay maqashay dowladda Mareykanku diidmadii ay la timid dowladda Japan waxay go'aansatay go'aan ay odhan karno wuxuu ahaa go'aankii ugu xumaa ee soo maray taariikhda. go'aankaas oo ahaa inay ku rido nuclear bomb dalka Japan waxaana uu soo saaray ra'iisul wasaarihii Mareykanka ee waqtigaas lagu magacaabayay Harry Truman in lagu rido nuclear bomb magaalada Hiroshima ee dalka Japan. maalinta ay taariikhdu ahayd 6dii bishii August sanadkii 1945 waxa la soo kiciyay diyaaradihii Mareykanka waxaana loo soo dhaqaajiyay jihadii magaalada Hiroshima iyadoo halkaasna loogu soo tuuray bamkii dadkii iyo maatidii dushoodii qaab bilaa naxariis ah waxaana ku nafwaayay dhacdadan wax ka badan 140,000 oo qof. dhacdadanna waxay ahayd dhacdadii ugu horeysay ee la adeegsaday hubka nuclearka taariikhda adduunka. ka hor intaanaan kala qaadin oo aynaan faahfaahin dhacdadan naxdinta badan leh bal aan eegno sidee dowladda Mareykanku ay salahaanba ku soo gaadhay oo ay ku samaysatay hubkan maxayna tahay sababta ay ula beegsatay magaaladan Hiroshima. sanadku markuu ahaa 1934 nin caalim Jarmal ah oo lagu magacaabayay Otto Hahn ayaa iktishaafay in cunsurka uranium-ta laga dhalin karo awood aad u weyn oo ayna suurtagal tahay in awoodan lagu dhex adeegsado dagaalada iyo hubka. markii uu warkani soo gaadhay dalka Mareykanka waxay aad uga cabsadeen in Jarmalku uu ka horgaadho teknoolojiyadan. sidaa darteedna dowladda Mareykanka ayaa soo saartay go'aan degdeg oo ay ku sheegayaan in la sameeyo bamkan qaab walba uu leeyahay in laga dhex sameeyo dalka Mareykanka. waxayna u doorteen waqtigaas in lagu dhex sameeyo bamkan 2 meelood oo kala ah Ingiriiska iyo Canada. waxaana lagu sameeyay nuclear bamkii ugu horeeyay mashruuci ay ugu magac daray mashruuci Manhattan. waxayna ka fuliyeen tijaabadii ugu horeysay ee bamkan saxaraha lagu magacaabo Almagode ee raacsan gobolka New Mexico. markii ay isku hubsatay dowladda Mareykankuna hubkii nuclear bamka wixii ka dambeeyay waxa batay bootadoodii iyo hadalkoodii. kadib mu'tamarkii Potsdamna waxay bilowday dowladda Mareykanku inay ugu hanjabto dowladda Japan qaab adag waxaana soo saartay bayaan rasmi oo ay ku sheegayaan in haddaynay isdhiibin dowladda Japan inay ku qasbanaan doonaan inay burburiyaan dhammaan dadkeeda iyo dhismayaasheedaba. dabcan waqtigaasna xukuumadda Japan way diiday inay isdhiibto sidaan soo sheegnay. xukuumadda Japan oo xukumayay waqtigaas boqorkii lagu magacaabayay Hirohito wuxuuna sheegay inay iska difaaci doonaan wax walba oo sameeyaan dalka Mareykanku oo aanay marnaba dhacayn inay dhulka isku dhigaan oo isku duleeyaan Mareykanka. laakiin waxa kadis ku noqday in Mareykanku uu ku soo tuuray hubkan waalida magaalada Hiroshima. mid ka mid ah su'aalaha ugu muhiimsan ee la iska weydiin karo dhacdadan ayaa ah maxay tahay sababta loo beegsaday magaalada Hiroshima. duqeynta ku dhacday magaaladan ma waxay ahayd qaab nasiiba mise waxa lagu doortay sabab kale.
maalinta ay taariikhdu ahayd 12 bishii May sanadkii 1945 waxa jiray koox Mareykan ah oo loo xil saaray inay ka doodaan magaalada lala beegsan lahaa bamkan iyagoo ku dooranayay meesha uu saameynta ugu badan ku yeelan karo bamkani waxaana soo sharaxeen shirka dhexdiisa dhowr magaalo oo ku yaala dalka Japan oo ay ka mid ahaayeen magaalada Kyoto, magaalada Tokyo, magaalada Hama, magaalada Hiroshima iyo sidoo kale magaalada Kokora. laakiin Hiroshima ayaa noqotay meesha ay ka doortay magaalooyinkii kale ee la soo sharaxay sababta lagu doortayna waxay ahayd magaaladan magaalo qadiimiya oo ganacsiga iyo dhaqdhaqaaquba uu ku badan yahay dhexdeeda gudaheedana ay ku yaalaan xerooyin ciidan oo tiro badan dad badan oo rayidana ay ku nool yihiin gudaheeda sidoo kale sababaha ugu weyn ee lagu doortay waxa lagu sheegay inay ka mid yihiin inta ugu badan ee guryaha ku yaalay magaaladan waxay ahaayeen qaar ka samaysan looxaan taasina waxay u fududeynaysaa inay dhaqso ku burburiyaan oo ay ku gubaan magaalada oo dhan ugu dambeyn markii la dhameeyay doorashadii magaaladii la gubi lahaa waxa la soo kiciyay diyaaradihii Mareykanka si ay ugu soo ridaan bamkii meeshii loo qorsheeyay ka hor riditaankii bamkan hal saacna wuxuu qabtay raadarkii dalka Japan inay soo galeen jawigooda diyaaradaha Mareykanku ay ka soo galeen dhinaca hawdka ee dalka Japan diyaaradahan oo ahaa 3 diyaaradood waxayna ahaayeen qaar duldulaya meelo deegaan oo ay degan yihiin waqtigaasna waxay go'aansatay dawladda Japan inaanay taaban diyaaradahan oo ay iska daayaan sababtoo ah waxay dul marayeen meelo uu shacab degan yahay waxayna la sugeen inta ay diyaaradahan u baxayaan meelo barxa oo aan cidna joogin manay gashan marna maskaxdooda in diyaaradahan ay u geysanayaan wax duqeyma magaaladan laakiin arrinka kadiska wuxuu dhacay saacadu markay 6:15 daqiiqo waxaana soo tuurtay diyaaradii Mareykanka ahayd bamkii iyadoo ka soo tuurtay sareen gaadhaysay 600 mitir waxaana ku jiray bamkan wax ka badan 60 kilogram oo maadadii uranium-ta ahayd kadib 57 sekin soo tuuristii bamkana wuxuu soo gaadhay oo ku soo dhacay bamkii dhulkii waxayna gaadhay saameyntiisii muuqatay masaafo lagu qiyaasa 3200 mitir oo isku wareega sidoo kale wuxuu gaadhay dabkii iyo hulcii ka dhashay masaafo gaadhaysa 10000 mitir oo isku wareega dhinac walba waxaana ka burburay weyday magaaladan 70% dhismayaasheedii waxaana ku dhintay dhacdan wax ka badan 140,000 oo qof marka laga reebo kumanaanka kale ee ku dhaawacmay iyo kuwa haleelay gubniinkii iyo sidoo kale kuwa wasiibay shucaaci ka dhashay bamkani kaliyana saameynta bamkani kuma istaagin waqtigaas waxay sheegaan culimadu in ilaa hadda ay sii socoto saameyntii ka dhalatay dhacdadan naxdinta badan leh arrinka sheegista mudanna wuxuu yahay marka ay dawladda Mareykanku qaadayso dagaal ama ay meel duqeynayso waxay ahayd ka hor intaanay fulin hawshan mid sii sheegta si ay uga gabadaan oo iga dhuuntaan shacabka hawshan laakiin nasiib darro markii la qarxiyay magaaladan Hiroshima ma iclaamin wax dagaal iyo sidoo kale inay hubkan u adeegsan doonto magaaladan dhexdeeda laakiin iyadoo ay waxa soo dhandhaceen haddana kuma istaagin arrinku halkan kadib markii lagu riday bamkii nuclear-ka ahaa magaaladii Hiroshima waxay la kulantay dawladda Japan khasaare nafeed oo aad u tiro badan oo aanay la kulmin dawlad kale oo ku taalay adduunku laakiin way diiday Japan mar kale inay sheegtay inay isdhiibtay iyo inay isu dhiibto dadka sidan u galay shacabkeedii laakiin balaayada weyn ee ka sii weynayd midii hore waxay ahayd in markii labaad ay diiday dawladda Japan inay isdhiibto ay go'aansatay dawladda Mareykanku inay mar labaad ku celiso falkii hore ay samaysay oo kale ay ku samaysay dawlad kale oo ka mid ah dalka Japan si ay ugu qasbaan dawladda Japan inay si qasab isu dhiibto halka ay ka cudur daaran lahayd oo raaligelin ka bixin lahayd dawladda Mareykanku hawshan ay samaysay wuxuu ku gasooomay adduunku subaxii maalintii taariikhdu ay 9kii bishii August sanadkii 1945 oo ahayd kaliya 3 maalmood kadib burburkii Hiroshima dawladda Mareykanka oo go'aansatay mar labaad inay dhulka la goysay dawlad kale oo Japan waxaana la dulgeeyay diyaaradihii Mareykanka magaalo kale oo Japan oo lagu magacaabo Nagasaki saacadu markay ku beegnayd 12kii subaxnimana waxay soo fasaxeen diyaaradihii bamkii waxaana lagu soo daayay bamkii magaaladii Nagasaki dusheeda iyagoo ka soo tuuray diyaaraduhu bamkan dherer gaadhaya 447 mitir 43 sekin kadibna bamkii wuxuu soo gaadhay magaaladii wuxuuna sababay dhimashada wax ka badan 80,000 oo qof waxaana ka dhacay halkaas balaayo kale oo aan ka yarin balaayadii hore ee ka dhacday magaalada Hiroshima maxaad malaynaysaa waxa soo dhan kadib maxaa dhacay inta kadib waxay go'aansatay dawladda Mareykanka ahayd inay u adeegsato nuclear bomb saddexaad dalka Japan usbuucii saddexaad ee isla bishii August iyo sidoo kale 3 bam oo kale oo ay u adeegsan doonto bisha September iyo 3 kale oo iyagana lagu dhufan doono bisha October sida in dadkan ku nool Japan ay yihiin xayawaan oo aanay ku nooleen ba meeshan bini'aadam xitaa xayawaanka ayaan banaaneyn in loo cadaabo oo loo ciqaabo sidan oo kale si kastaba haatiyadu dawladda Mareykanku qorsheynaysa jadwalka ay ku fulin lahayd hawshan jawaabta ayaa ka timid dalka Japan jawaabtaas oo sheegaysa in boqorkii uu ogolaaday inuu isdhiibay isagoo ilaalinaya shacabkiisa dawladda Japan waxay ahayd mid doonaysa in adkaysato oo aanay isdhiibin ilaa dhamaadka laakiin marka ay dhacday dhacdii Nagasaki waxay u degtay dawladda Japan dib waxayna ka fikirtay arrinkii sida darteedna waxay soo bandhigtay dhowr shuruudood ay ku xidhay inay isdhiibto wuxuuna bilaabay boqorkii Japan inuu u galo shacabkiisa khudbad uu isugu yeedhay dadkii oo dhan oo ugu sharaxaya wadciga siyaasadeed ee uu ku jiro waddankiisu
15kii bishii August isla sanadkaasna waxay shaacisay dowladda Japan inay isdhiibtay waxaana saxaaday warqadii isdhiibista 12kii bishii Sebtembar halkaas ayuuna ku dhamaaday dagaalkii labaad ee adduunku kadib markii dalka Jarmalku isna saxaxay inuu isdhiibay sidoo kalena waxa la soo saaray waqtigaas go'aan kale oo sheegaya inaan dib loo adeegsan doonin hubka nuclear bombka intaas uu ku eegyahay daawadayaal muuqaalkeena maanta hayloobin hadduu ku qanciyo muuqaalku inaad like saarto subscribe na saar haddii aad ku cusub tahay channelkeena ogaal cusub waad mahadsantahay